bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii kulan wareedka warbaahinta magan qodobada maanta barnaamijka aan idinkugu heerno waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo ka hadashay fatahaadaha uu sababayo webiga Shabeelle shir looga hadlayay xaaladaha dalka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho hooyo Soomaaliyeed oo hirgelisay warshad soo saarta sonkorta kuna nool dalka dibadiisa Jabuuti oo sheegtay inay xirayso xuduudaheeda iyo warbixin taariikhaysan oo laga hadli doono mahadada 22 Oktoobar 1969 laga dhaxlay iyo waxa lagu xasuusto dawladii kacaanka oo waagaasi la aasaasay hadalkaba sidiisiba murtibu wataaye maantana waxaa digsoo tiri madashii ciyaaraha hormuudkii dhalinta horusocodkii idaacada hilowgii dhamaade megan baa digsoo tiri hadal badan ma fiicne hormuud weeye megan hilow baanu qabnaa megan hiisi weynoo tahay intaa kuma eke dhalintay waxa garbaxda dhibkay ka dhowrtaa xanaftay u diidaa mar walba waxay jeclaystaan bay dhagahooda maqashiisaa bulshooy megan waa megantiina haatanna aynu u sii gudagalna barnaamijkeena qaramada midoobe oo ka hadashay fatahaadaha uu sababayo webiga Shabeelle sida uu ku eegayo wariye Najiib Salaad warbixin ka soo baxday qaramada midoobe ayaa waxa looga hadlayay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan fatahaadda ku dhufatay dalka qaramada midoobe ayaa warbixinta ku sheegtay in ku dhawaad 9 milyan qof ay ku barakaceen kaliya fatahaadda oo Soomaaliya ku geystay webiga Shabeelle sidoo kale warbixinta ayaa waxa lagu shaaciyay in fatahaadda iyo dadka jira ay salkiciyeen dad gaaraya 341,884 qof guud ahaan Soomaaliya warbixinta ay soo saartay hay'adda isku dabaridka arrimaha gargaarka qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo OCHA ayaa lagu sheegay in 4 bilood ee ugu dambeysay fatahaadda iyo daadadka ka jira ay salkiciyeen dad gaaraya ilaa 341,884 ruux guud ahaan Soomaaliya hay'adda ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso raashin yari la'aan 2.1 milyan qof oo ilaa bisha December ee sanadkan xaalku si murugo doona webiga markale fataho hay'adda FAO waxay sheegtay in cabirka uu yahay webiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne oo iminka gaaray 7.5 milyan waxayna ka dhigtay in fatahaad hor leh gobolada hodanka ah waxa ka soo saarka beeraha ee maro webiga Shabeelle oo kamid ah meelaha saameynta xoogga leh ayaa fatahaad ku yeeshay gobolka Shabeelle hoose waxa ku barakacay oo fatahaad saameysay 183 qof laga soo bilaabo bishii July sanadkan sida lagu sheegay warbixinta OCHA gobolka Shabeelle dhexe ayaa isaguna waxa fatahaad webiga ku barakacay 131,422 waxaa sidoo kale burburay dhul beereed xal gaar ahaan magaalooyinka Afgooye Balcad Jowhar iyo Mahadaay gobolka Hiiraan waxa ku salakacay fatahaad webiga 28,000 waxaana jirta cabsi laga qabo webiga gaar ahaan magaalada Beledweyne ee webigu leeyahay meelo jilicsan oo ku fatahi karo fatahaadda iyo daadadka waxa halista ugu weyn ee xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan marka laga yimaado ayaxa iyo COVID-19 shir looga hadlayay xaaladaha dalka oo Muqdisho lagu qabtay waxa shirkaasi iyo wixii lagaga hadlay inoo dhameystiraya wariye Dardar Cali shirkani ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho waxaana xoogga lagu saarayaa sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha fatahaadaha anyaxa iyo cudurka COVID-19 ayaa waxa dowladda Soomaaliya ka taageeraya bangiga adduunka mas'uuliyiin ka socda wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeelle agaasimaha guud agaasimo waaxidiyada iyo shaqaalaha ayaa goobjoog ka ahaa waxaana shirkani wadatashiga uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah agaasimaha wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka Hirshabeelle
cabdulaahi maxamed xasan dhagacade oo furitaanka shirkani hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in shirkani dib loogu eegayo dhibaatooyinkii la soo maray oo ay ka mid ahaayeen daadadka abaaraha anyaxa iyo cudur COVID-19 oo halakeeyay dunida intiisa kale ka maamul ahaan diyaar ayaanu u nahay hanaanka wax loogu qabanaya in ay xoogga saaraan cali xaaji aadan maareeyaha mashruuca kasoo kabashada xaaladaha Soomaaliya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in mashruucani ahmiyad weyn u leeyahay bulshada nugul ee uu saameeyay daadadka abaaraha iyo anyaxa. hooyo Soomaaliyeed oo hirgelisay warshad soo saarta sonkorta kuna nool dalka dibadiisa. qodob warkaasi ku aadan waxaa isha ku haysa wariye Bahja Cabdullaahi. haweeney Soomaaliyeed oo kamid ah ganacsatada ugu taajirsan Afrika ayaa waqooyiga dalka Uganda ka hirgelisay warshada ugu weyn Afrika ee sokorta waxaana xafladda furitaanka warshadaasi oo dhici doonta Khamiista ay ka soo qaybgali doonaan madaxda Afrika oo ugu horeeyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Titoreso Amine Xersi Mooge oo dalka Uganda iyo dalalka kale ee dariska la ah ka hirgelisay maalgashiyo kala duwan ayaa waxay ku guuleysatay in Uganda markaan ka hirgeliso warshada ugu weyn ee soo saarta sokorta taasoo lagu magacaabo Ideg taasoo horumar iyo dhaqaale ku soo kordhin doonta gobolka Geeska iyo Afrikaba. maalgashiga weyn ee Titoreso Amine Xersi Mooge ku sameysay warshadan sokorta ayaa noqonaya mashruucii ugu ballaarnaa ee laga hirgeliyo waqooyiga dalka Uganda iyada oo la filayo in warshada Ideg ee sokortu ay gobolka Geeska Afrika ku soo kordhin doonto dakhli iyo horumar ballaaran kadib marka la gaarsiiyo wadamada ku yaala gobolka. Titoreso Amine ayaa hore dalka Uganda ugu hirgelisay warshada sibirka iyo qalabka dhismaha ee lagu iibiyo magaalooyinka wadanka Uganda loona dhoofiyo dalalka kale ee gobolka. waxay kaloo leedahay xarunta ganacsi Oasis Shopping Mall ee ku yaala xaafadda ganacsiga ee bartamaha caasimadda Kampala iyo guryaha Laburnum Courts oo ku yaala Nakasero Hill oo daris la ah aqalka madaxtooyada ee Kampala. haweeneydan ayaa si weyn looga tixgeliyaa dalka Uganda oo saameyn xoogan ku leedahay iyadoo dhaqaalaha wadanka soo gala ay ka tilmaaman tahay Bahja Smart warbaahinta Magan Muqdisho. dowladda Jabuuti ayaa mar kale xirtay xuduudaheeda kadib markii uu soo laba kacleeyay fayraska corona oo maalmihii la soo dhaafay kiisas badan laga diiwaangeliyay dalkaasi. war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jabuuti ayaa lagu sheegay in xuduudaha dhanka dhulka la xirayo muddo 15 maalmood ah si loo xakameeyo faafitaanka fayraska. Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka Afrika ee uu sida ba'an ugu faafay fayraska corona hase dadaal ay dowladda ayna samaysay ayaa lagu sheegay inay yaraadeen kiisaska muddooyinkii ugu dambeeyay jiray. bilihii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ayaa ka dabar go'ay dalkaasi sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka. warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda ayaa lagu sheegay inaysan jirin kiisas cusub isla markaana dhammaan dadka uu ku dhacay ay ka bogsadeen balse shalay oo kaliya ayay wasaaraddu shaacisay 30 kiis oo viruska balse faahfaahin kamaysan bixin halka ay kiisaskaasi ka yimaadeen. waxaa jira dad u dhashay Jabuuti oo ku maqan dalka Itoobiya iyo qaar u ambabaxay maamulka Somaliland ee qaybta ka ah Soomaaliya oo inta badan safar dhulka ah ay ku soo galaan Jabuuti amaba iyana kaga baxa. lama oga in lagu amri doono inay diyaarad soo raacaan iyo in kale. dowladda ayaa ugu baaqday shacabka inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah si loo xakameeyo cudurka. alla sacdiyo gabadhii Samiira ahayd ee aan saaxiibada ahayn maanta isla weynideedii salaantii gacanta xitaa way ii quuri weysay suuxdada. Fardoosay gabadhaas weligeyba laba qabsan ee faankeeda aanba iska dhex arkaani horta haddana waxay ku dartay inay salaantii gacanta ay ku diido. sorry wallaahi
adaa ka siliita gabadhaas oo marka horeba sharfay qaablayda see camal gabdho xantu waa xaaraan samiirana waa gabar idinka aqyaarsan taxadarna leh bal intaad isxanaajinin labadiina horta ma ka fakarteen koronaha adduunka ku faafay in loo dhinto marka walaalayaalow salaanta iyo istaabashada ayaaba la diidan yahay mana la ogola sababtoo ah waxaa muhiim inoo ah inaan caafimaadkeena ka wada shaqeyno oon taxadar weyn yeelano waayo cudurkan ka hortag mooye daaweyn ma lahan waxaana maanta uu soo ritay dadkii ugu badnaa oo malaayiin ka badan ma ahan xilligeed isku coron laheedeen ama aad u coron laheedeen ordaha kala tag oo xaafadiina ku nagaada alla bahjooy isma lahayn in taabashada lagu kala qaado karoonahee maanta kadib guri kama soo bixi doono taladaadana waan qaatay sorry abaayo hadda kadib taxadarku waa inoo muhiim hadda kadibna qofnooga ma xumaanayo maxaad ii salaami weyday ileen hadduu xaalka caafimaadkeena ku jiro markaana dhegeystayaal waxaynu soo qabanaynaa warbixin taariikhaysan oo lagaga hadlayo taariikhda 21 Oktoobar 1969 maanta oo kale waxa ay ku aadan tahay oo aynu gebi ahaanba barnaamijkeena maanta aynu kaga hadli doono warbixintaasina waxa inoo soo jeedinayo wariye Maxamed Soomaali dowladii kacanka oo uratay 21 Oktoobar sanadii 1969 ayaa ahayd midii ugu waqtiga dheereed ee dalka soo marta afgembiga waxa uu ka dambeeyay dilkii madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmarka oo 15 bishii Oktoobar sanadii 1969 lagu dilay magaalada Laascaanood markii uu dilkaasi dhacay waxa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim cigaal waxaa xilliga uu dilka dhacay ku sugnaa magaalada New York ee dalka Mareykanka uu uga qayb galayay shirkii qaramada midoobay waxa uu markii uu dilka maqlay uu si degdeg ah dib ugu soo laabtay dalka Maxamed Xaaji Ibraahim cigaal markii uu dalka ku soo laabtay waxa uu bilaabay sidii loo dooran lahaa madaxweynihii bedeli lahaa Cabdirashiid Sharmarke waxaana xilligaas laga dooday cidda madaxweyne noqonaysa waxaana ugu dambeyn lagu heshiiyay 20 Oktoobar sanadii 1969 in Xaaji Muuse Boqor uu noqdo madaxweynaha bedelaya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmarke balse taasi laguma simin in taladaasi ay meel marto waxaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa afar kamid waxyaabihii lagu xasuusta dowladii kacanka habeennimadii 21 Oktoobar sanadii 1969 waxa talada dalka si buuxda ula wareegay milatarigii dowladii xilligaas jirtay ciidamada talada qabsaday lama garaneyn cidda hogaaminaysay xilligaasi balse waxa ay kala cadaatay 1 bishii November 1969 oo lagu dhawaaqay xubnihii golihii sare ee kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood Maxamed Siyaad Barre ayaa khudbadiisii ugu horeeyay jeediyay 23 Oktoobar sanadii 1969 taasi uu ugu hadlayay waxa ay doonayaan inay qabtaan khudbadiisana waxa kamid ahayd hadaladiisa waxaanu doonaynaa inuu dalku noqdo mid sharci ku dhisan inaanu dadka ka dhigno dad sharciga u hogaansamo waxaanu doonaynaa inaanu ku talaabsano laaluushka baabi'ino waxaanu doonaynaa inaanu ku talaabsano inaanu baabi'ino qabiilka ayaa hadaladiisii Maxamed Siyaad Barre ka mid ahaa General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ah saraakiishii xilligaas ayaa sheegay in afgembiga uu ahaa mid si weyn loo qorsheeyay waxa uuna inqilaabku dhacay ciidamadii ayaa la qaybiyay idaacadii Radio Muqdisho ay si buuxda ula wareegeen sidoo kale waxa ay qabsadeen xaruntii dawladda
sidoo kale waxa ay qabsadeen bangigii dhexe. sidoo kale ciidamadu waxa ay gaareen baarlamaankii xaruntiisii ayay qabsadeen iyo meelaha halbowlaha u ah oo dhan ayay ciidamada la wareegeen. General Galaal ma ahayn qorsheynta afgembigu mid qarsoon oo iska cadeed. nimankii meesha joogay unbaa daminayaal ahaa. haddii wax kasta loo sheegina way aqbali waayeen inqilaabkaasi sidaa ayuu ku dhacay. haddaba markii ay dowladdii kacaanka xukunka la wareegtay waxa ay ku dhaqaaqeen dhowr arrimood oo dhanka horumarinta bulshada iyo dalka. dadka taageera Maxamed Siyaad Barre waxa ay sheegeen in dowladdiisu intii ay jirtay dalka isbeddello horumar leh ay ka dhaceen, halka kuwa kalena dhaliila ay ka muujiyeen qaabkii markaas Maxamed Siyaad Barre u dhaqmayay. waxyaabaha horumarkii lagu xasuustaa dowladdii kacaanka waxaa ka mid ah qoristii afka Soomaaliga. qorista afka Soomaaliga ayaa ka mid ah waxyaabihii lagu ammaanay dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre. sanadii 1972 ay ahayd markii ugu horeysay ee la qora afka Soomaaliga. waxa uuna Maxamed Siyaad Barre aaminsanaa in dadka ay afkooda hooyo uga ciilbixi karaan dhanka waxbarashada. gudnimo cilmi ah ama tacliin ah wax afka hooyo aan ahayn nagama bixin karta. halkaasaan idinku celiya. gudnimo cilmi ama tacliin wax afka hooyo aan ahayn oo naga bixin karta ma jirta. taasi markaan barana cilmiga kalena waa badan yahay waana ballaaran yahay. wixii lagu baran karana waa un afka hooyo. inta kale laguma baran karaa. saas darteed afkii hooyo ayaynu dhigaynaa ayuu yidhi Maxamed Siyaad Barre. Professor Maxamed Xaaji Raabi waxa uu ka mid ahaa macallimiintii kulliyadda waxbarashada ee la fuula qaybta luqadaha. waxa uuna ka mid ahaa barayaashii ugu horreeyay ee luqadda afka Soomaaliga ka dhigta kulliyadda. qaar ka mid ah guddigii qoray afka Soomaaliga markiiba kacaanka waxay ku dhaqaaqeen in af Soomaaliga la qoro. markay guddi ayay magacaabeen ka kooban 22 qof. waxaana lagu yiri waxaa la doonayaa inaad qortaan 4 buug oo buugaagta ugu horeysay af Soomaaliga lagu dhigi doono dugsiyada ayuu yiri Professor Raabi. Professor Maxamed Xaaji Raabi ayaa sheegay in guddiga loo saaray qoridda afka Soomaaliga ay ku kala qaybsameen dhowr qayb oo qaar waxay dooneen in lagu qoro Carabiga, qaar waxay dooneen in lagu qoro Laatiinka. ugu dambeyntii qolihii Laatiinka qorayay cidna uma aysan baahneen teeb inta ay qaateen waxa ay qaban kareen qabteen. qoladii kacaanka wax kale ma aysan sameyn, kuwii Laatiinka unbay qaateen ayuu yiri Professor Maxamed Xaaji Raabi. dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya. waxyaabaha kale ee lagu xasuusta xukuumaddii kacaanka uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa ahayd dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya. dagaalkaasi oo dhacay 1977 waxay ciidamada Soomaalidu markii hore ay gaareen guulo la taaban karo. General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ah saraakiishii hogaaminaysa dagaalkii dhexmar Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ahaa 2 qaybood oo kala ah qaybtii jabhadaha iyo kii ay ku galeen ciidamada dhulka Soomaalida Itoobiya. dagaalka 2 weji ayuu ahaa. wejigii gobonimo doonka iyo wejigii ciidamadu ay ku galeen. 23 bishii Juulaay 1977 ayaan ku dhufanay dhanka koonfureed ee dhanka Goday ee Qabri Dahaar iyo dhagax buur. Qabri Dahaar isla markiiba waan qabanay ayuu General Galaal. dagaalkii gobolada waqooyi. waxyaabaha kale ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre lagu xasuusto waxaa ka mid ah dagaalkii gobolada waqooyi ee iminka la magac baxay Somaliland. dagaalkaasi waxa uu dhex maray dowladdii kacaanka iyo jabhadihii SNM oo ka soo horjeeday xukunkiisa. waxaa lagu eedeeyaa in dowladdii Siyaad Barre ay dad badan oo shacab ah ay ku gumaaday gobolada waqooyi. Ibraahim Cabdullaahi Xuseen Dhagweyne waa taliyihii hogaaminayay ciidankii jabhadda SNM ee bishii May 1988 weeraray magaalada Hargeysa. Dhagweyne ayaa BBC-da weydiisay waxyaabihii ku qasbay inay hubka qaataan ay dowladdii kacaanka la dagaalamaan. waxaa heerka na gaarsiiyey ayuu yiri markay cadaalad darrada badato oo
wadahadal la diiday ee talo la diiday oo la yidhaahday annaga unbaa tayada soconaysa, waxaa taasi keenaysaa in gacanta isula taga. hadalkaasi waxaa yidhi jenaraal dhagaweyne. ibraahim cabdulaahi xuseen dhagaweyne ayaa sidoo kale sheegay in dowladdii gacaanka uu hogaaminaya maxamed siyaad barre ay diiday inay wadahadallo la gasho ay ka qanciso dadkii gobolada waqooyi waxyaabihii ay tabanayeen. wax ummaddu leedahay in laga wada hadlo maxamed siyaad barre meel cad ayuu ka istaagay. adduunyada xitaa way u soo jeedisay in la wada hadla, waa uu diiday in mar keli la wada hadla ayuu tilmaamay jenaraal dhagaweyne. dowladdii kacaanka oo ka talinaysay soomaaliya muddo 21 sannadood waxaa ugu dambeyn xukunka ka tuuray jabhado sanadii 1991. waxaynu halkaa ayaynu ku hakinaynaa barnaamijkii kulan wareedka warbaahinta magan oo aad kala socotaan baraheena internetka. intaynu dib u kulmi doonno barnaamijka kiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.